calan garabkiisa ku dhaganaay ayuu ka foqsaday wuxuu awoodaa inuu yiraahdo wuxuu awoodaa sawirray galayeen markuu sawirka ku galay inuu ka qaato intiiba ma dhicin qori uu ammaanka ka goostay xabada wadnaha ku dhuftay ma uusan oofin mid ka mid ah tiirarkii shardiga u ahaa dhisidda maankiisa iyo jirkiisa ka hor intaysan dowladdu u siinin sharciyada isticmaalka hubka iyo ku biirista daljirayaasha u ah difaaca qaranka saalax maxamed maxamuud oo ku magac dheer Aneemiyo waxa uu nolosha dhaafiyay saaxiibkiis Muxudiin Xasan Macalin oo ay militariga ka wada tirsanaayeen sida laga helay raadad internetka ugu wada jira si wada jir ah eedeysana Saalax iyo marxuum Muxudiin Xasan Macalin waxay ahaayeen saaxiibo 11 Juun sanadkan ay beeraha Balcad ugu baxeen iyagoo ilaa 6 ah inay muuqaalo doog dhexdiisa isaga soo duubaan waxaase yimid muran filawa ah oo eedeysanaha la dul istaaga marxuumka waxaa la isku qabsaday astaanta calanka oo ka mid ah sumadaha garbaha ciidanka in laga arkaayo u tahay asaasi waxa uu Saalax ku dooday lahaanshiyaha sumadan inkastoo saaxiibadii ay wada joogeen ee qireen inuusan lahayn eedeysanaha isku dayo iyo kala dhexgelid kadib Saalax ayaa dhowr xabo oo laba ka mid ah marxuum Muxudiin haleesha sii daayay waa kan mid ka mid ah maragyada oo uga warbixiyay garsoorka sida ay wax u dhaceen calankii meesha ugu dhaay waa baxnay gees kala tagnay way agtiisa meesha fiidiyoyaal wax iskaga duum waa soo laawnay hadii maani meesha ay maani calankii meesha ninkan ka gaatay oo ku dhajistay calankii ninkan soo socday marxuumku waa ka fojistay marka ninkan asoo fadhiyo ammaan u jartay anaa ku goodi ammaankii ka xiray waa socday markaas ammaanka markaa ka xiray oo kan kalena wuxuu dhahay calanka anaa bas kale ma ay rabtaa calankan ma adi leedahay adi ma lihiid waay markaas in kaana ana ammaan ka xiray waa ka tagay marka haga amal 10 second amal dhacdeen ku jirtay inkaan wuxuu dhahay marka taa ku dhashay adi ma calankay ugu qabsan karto marxuumka dhahay ninka markuu waa u istaagay ammaan uu furtay ooy marka dheynina abadu waa ku yeeshay calanka oo hor waa iska la shaafay waxaana ka qaaday marxuumku waa ka dhahay meeshii hadii ku soo laabanay ninkaan oo fiidiyowga ta calan uu ma dhigsanaasi fiidiyowga in la hayaa u maleynaa labadiis garbood Saalax calanku ma dhigno fiidiyowga hada fiiris markii dambena calanku hore u watay u dhahay anaa iska leh saasay waa u dheen isku kooxa banaay sidaan shaafi imidka kale labada hadda maqan imaal marxuumka intaana dhan baaraha kiiska iyo xafiiska xeer ilaalinta ayaa iyagana doorkooda sharci maxdarkan si wada jir ah uga horjeediyay mudan gudoomiye ka soo riyal dhamaantood waxay ku wareysanaayeen dharkii ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo hubkii xoogga dalka markii xaggaas la tagay ayaa waxa la gaaday sawiro oo selfie ah kabacdi waxa iska duubay video kow inta magaalada Gni Balcad video waxa iska duubay eedeysanaha iyo askari kale kabacdi waxa la tagay beertii sawirada la galay waa beer cambe ah inta ka saaran wabiga kabacdi sawirada markii la galay waxa iska duubay isna jabka mudan gudoomiye ka soo riyal marxuumka ayuu wuxuu watay fanaanadii tuutaha iyo suwalkii caadiga tuutaha fanaanada soo xiran carabka ugu xirtay garabka Soomaaliga kabacdi waxa iska duubay video waxa iska duubay ad marqaati maqan oo yiraahdo Shaafici iyo marxuumka dhulkan waxa fadhiya eedeysanaha oo ka fadhiyay gacanta midig dhulka fadhiya oo gaal wuxuu qabay madow kadib marxuumka waxa ka dhacay calanka saacad oo dhacay calanka saacada ka muuqdo video waa keenay calanka uu ka dhacay waxa qaadanaya eedeysanaha kabacdi waxa soo booday marxuumka lagu naxariistay Muxudiin Xasan Macalin wuxuu calankiisii wiiri calanka uu ka fadhiistay marka marxuumkii wuxuu ku xirtay garabkiisa marxuumkan iska calanka eedeysanaha markii la keenay wasaaradda gaashaandhigga 13 bishii lixaad waxa uu diiwaan maxay sababta u dishaa lahayd wuxuu xabad ay fakat calanka uu qabsaday calanka ana iska wiiri kadib markaa tagay goobtii oo ka dhacay falka markaa helay fiidiyowgii oo ka helay bluebird waxa waa marqaatiga maqan wuxuu ku jiray sana jabka markaas waxa ku dhahay waxay jirtaan fiidiyowgii maalinkaas ka dubteen
markaas wuxuu yiri waa iska dileedu yiri dhima laha lacag ku stuuriya dhahay lacag u diray waxaan aysan shaqo gal dhahay qaybtooda oo laga dileedo waduu galay iskanta big waa la soo dejiyay fiidiyowgii waa la isdiray wax diray xilaalinta markaatay goobtii aan tay geedka cambaha aan ka soo qaad sawir marxuumku caanka qaatay kadib qorigu soo qabsay sanaha laba baarato wuxuu ku dhiftay marxuumka xabada wuxuu dhacday qoorta waxa ka baxay garabka dambe waxa ka sii baxay geedkii cambaha si aad ka muuqato sawirka sana wuxuu kaloo sheegay beent ah in xabada iga fakta uu yiri uu yiri hadana si wuxuu leeyahay calankan askare waxaan u aanay saddex maqaatiyaal waxa loo sheegay inuu si bareer cad u dilay calanka uu lahaa marxuumka si aad ka muuqato fiidiyoo cadeynta keenay aan ku rijay xafiis xiraaninta muddo gudoomiye ka Soomaaliya marxuumka xabada wuxuu ku toban bish wuxuu noolaa 24 saacadood wuxuuna geeriyooday taariikh markii 12 bishii lixaad wuxuu ku geeriyooday saalka ciidanka xoogga Soomaaliyeed muddo gudoomiye ka Soomaaliya markaas kiiskan baaritaan ku sameeyay markii aan ka qoray maqaatiyaashii markii asaga wareystay muddo gudoomiye ka Soomaaliya waxay soo baxday in eedeysana dabla xooga Saalax Maxamed Maxamuud uu si bareer u dilay marxuum ex dabla xooga Muxudiin Xasan Macalin oo u dilay calankii ugu xirnaa garabka Soomaaliga ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle Carab Nuur Yuusuf Shabeel ayaa maxkamadda ka codsaday in la marsiiyo ciqaab u dhiganta dembiga uu galay Saalax Maxamed Maxamuud haddaba sidaas darteed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh si ay ugu waana qaataan kuwa la midka ah Saalax ee ku fikiraya in ay geystaan dil macna darro ah maadaama aan keenay cadaymo kasta oo maxkamaddu ay u baahnayd maadaama Saalax uu yahay qiraal in uu geystay dembigaas kasna u geystay maadaama aan keenay qorigii dilka lagu geystay maadaama aan keenay marqaatiyaal nool maxkamadda horteeda oo cadaynaya asbaabta iyo sababta uu dilka u dhacay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda ka codsanaynaa eedeysanaha maxkamadda hor fadhiyo Saalax Maxamed Maxamuud in ay maxkamaddu ku xukunta aayadaha aan ku soo eedeynay iyo qodobka aan ku soo eedeynay iyo aayadaha ku xusan eedda si ay ugu waana qaataan mangaabyaasha ku fikiraya inay macna darro ku gooyaan qof islaama naftiisa oo aysan u dhicin in lagu dheeldheelo dhiigga bini'aadamka iyo dhiigga geesiyaasha ciidanka qalabka sida haddaba sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay bilaahi tawfiiq qareenka ayaa codsaday mag iyo in la tixgeliyo wadahadal bilow u ah labada reer ee marxuumka iyo eedeysanaha maxkamadda hortaagan qofka ciidanka markii la tababaraa waxaa loo tababaraa cadowgiisa inuu iska difaaco saaxiibkiisa inuu iska difaaco cid walba oo naftiisa maanta soo weerarto inuu iska difaaco qofka ciidanka loo tababaraa saas darteed marxuumka asaga wuxuu sameeyay ninka saaxiibkiisa wuxuu ka qaatay calankii wuxuu isku dayay inuu ka celiyo wuu ka diiday waliba wuxuu isku dayay inuu qori doonto marxuumku markaas wuxuu eedeysanaha wuxuu awooday ninkaan sii socday inuu ka tagto ma sameeyay qorigiisu hays ninka markuu aasay qorigiisa oo soo qaatay oo eedeysanaha lagu soo aadiyay wuxuu ku qasbanaaday naftiisa inuu difaaco si waafaqsan qodobka 34 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed saas darteed marxuumka asoo soo jeedo oo qoriga ninkaas saan u haayo eedeysanaha wuxuu ku qasbanaaday naftiisa inuu difaaco sidaas darteed xabadda oo kulida waxay kaga dhacday qaybta hore waxayna ka baxday qaybtan dab markii intaas laga soo reebo Soomaalida dad ehel iyo qaraawo waay waxaa dhacday dhinaca waliyu damka iyo dhinaca eedeysanaha familkiisa waxay galeen wada xaajood nootaayay tageen waxay ku heshiiyeen inay diig kala qaataan xafiiska xeer ilaalinta markii loo fiiriyay faldambiyeed ka dhacay laba dhiban oo leeyahay dhibanaha asalka waxaa waaye dhinaca waliyu damka dhibanaha labaad sharciga oo tilmaamayaan waxaa waaye qaranka Soomaaliyeed xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida wuxuu matalaa qaranka Soomaaliyeed laakiin waxyaabaha laga rabaa waxaa ka mid ah dhibanaha asalka ah maxkamadda inay u soo gudbiyaan maadaama ay u soo gudbi waayeen anaga dhibanaha asalka ah ama waliyu damka sababtoo falkan hadda dhacay dil waay dil markoo dhaco natiijada ka dhalanayso
waxaa waay weliyudamka saddex arrin midkooda u furan inuu dil dalbado inuu iska cafiyo iyo inuu dii qaato sidaas darteed labada famil way wada tageen meelay wada fadhiisteen way wada hadleen dhinacan eedeysanaha familkiisa waxay ku qanciyeen dhinaca kale oo weliyudamka inay dii ka qaataan sidaas darteed waxay tageen nootaayo waxay kala qaateen diyo ama waxay ku heshiiyeen diyo maxkamadda hadday iga ogolaato mudan gudoomiye waxaan rabaa inaa warqadda heshiis kuu soo gudbiyo maxkamadda sharafta leh waxaa ku codsanaynaa eedeysanaha inay xorriyaddiisa u celiso maadaama dilkan oo u galay qaab difaacu nafsi si waafaqsan qodobka 34 maxkamadda waa mahadsan tahay horta ani ninkan si bareer umaana dilin horta ninka qori marka iga qaadaan sideed fiicnaa qoriga soo qabsi waa ugu qabayaan ninkan wuxuu yiri qori muudan uu yiri wuu dil hadaa dilaa markuu sii socdo qoriga doonaa dilaa ana markaasna markaas qorigiisa ninka waa kuubi la qoriga soo qaad qoriga ka bacay ana xabad ku dhufto qoriga soo qaad maxkamadda ka codsaa inay afis gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo dhinacyada si isku mid ah u ciyaareen cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho